السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أردايدا كحران channel كينا يوتيوب فيوجا سومالي ستارز أكاديمي وانا دي سلامية مانتا 10 أدي حيث بدنا يا وضنا واه دايالوج أما وضا شيكيسي عجيب واه ويسويدر سنيان ويل يو قبض أوكي akhriskiisa tan ku hormara intaanan maxaa la jiray sharaxin wiilkii baa wuxuu leeyahay welcome dear sister, I would like to ask you a sensitive question if you don't mind. The girl has replied and said, there's no problem, you can ask me if you don't transgress anyone's dignity. The boy is now going to ask his question and he says, okay, thanks. My question is, why do the majority of the Somali girls change their skin color while they are considered the most beautiful human creatures in the world? The girl lastly replies to the boy and says, the problem is not from our side, it is from the Somali men, because they mostly admire light-skinned girls. Okay, haddii aan marka sharaxna cashirkeeni wiilka ayaa noo bilaabaya wuxuu leeyahay welcome soo dhawow dear sister abayo qaali. Welcome soo dhawow dear sister abayo qaali ama walaashay qaali. Soo dhawow dear waa wax qaali ah, marka sisterna waa abaaye ama walaashaada oo gabar ah. Wuxuu dhahay marka I would like to waxaan jeclaan lahaa, waan ka xumahay halkaa like ayaa iga maqan ku darsada. I would like waxaan jeclaan lahaa to ask you inaan ku weydiiyo a sensitive question, su'aal xasaasi ah, yacni su'aal in laga jawaabo ay adag tahay oo yacni xasaasi ah ama dadka qaar uu dhibsan karo ayaan jeclahay inaan ku weydiiyo. If you don't mind, haddaadan dhib u arkayn. If you don't mind, haddaadan dhib u arkayn ayaa laga wadaa. Okay, gabadhii waxay tiri marka there is no problem, dhib ma lahan, you can ask me waad weydiin kartaa. If you don't, haddaadan transgress aadan ku xadgudbaynin. Transgress waa xadgudub. Waxay tiri there is no problem, dhib ma lahan, you can ask me waad weydiin kartaa. If you don't transgress, haddaadan ku xadgudbaynin anyone's dignity, qof sharaftiisa, yacni haddaadan qof meelna ugu dhacaynin oo su'aal macquula tahay waad weydiin kartaa. Okay, wiilka wuxuu yidhi okay, thanks. Waayahay waa mahadsan tahay buu dhahay. Okay, thanks waxaa waaye waayahay waad mahadsan tahay. My question is, su'aashayda waxaa waaye. My question su'aashayda is waxaa waaye. Why sababta maxay tahay do the majority badanaa of the Somali girls, yacni gabdhaha Soomaaliyeed badankooda majority yacni badan waa aqlabiyad waa. Marka sababtu maxay tahay buu dhahay do the majority of the Somali girls, yacni badanaa gabdhaha Soomaaliyeed change ay u bedelaan their skin color, yacni midabkooda ama midabka maqaarkooda. Skin waa maqaar, colorna waa midab. Marka sababta ay gabdhaha Soomaaliyeed badankooda ay u bedelaan yacni maxaa la jiray midabka yacni maqaarkooda maxay tahay buu dhahay. While iyadoo they are considered loo tixgeliyo ama yacni loo aaminsan yahay inay yihiin the most beautiful human creatures in the world. The most beautiful kuwa ugu quruxda badan human creatures yacni bini'aadanka Allah uu uumay. Human yacni waa bini'aadanka, creatures waxaa lahaa waxyaabaha Allah subxaanahu wa tacaala abuuray in the world ee adduunka, iyadoo adduunka lagu aqoonsan yahay ama loo tixgeliyo inay yihiin bini'aadanka Allah uu abuuray kuwa ugu quruxda badan, maxay haddana u bedelaan maxaa la jiray midabkooda. Su'aashaas ayuu weydiiyey. Okay, gabadhii waxay tiri markaa the problem dhibaatada is not ma ahan ama kama imaanin from our side dhankeena. Annaga haddaan haween nahay mise gabdhaan nahay dhibaatada dhankeena kama socotay tiri. It is from waxay ka socotaa dhibaatada ama ka imaanaysaa
the Somali men ragga Soomaaliyeed ayay ka imaanaysaa because sababtoo ah they mostly admire waxay badanaa ka helaan they marka waa magacyeel men mar walba lama soo celin karo marka sidaa daraadeed they ayaa hadda la isticmaalaya marka waxay leedahay gabadhan the problem dhibaatada is not from our side innaga dhankeena kama socoto haddaan gabdho nahay mise aan haween nahay it is from waxay ka imaatay dhibaatadaasi the Somali men ragga ee Soomaaliyeed because sababtoo ah they mostly admire waxay badanaa ka helaan light skinned girls gabdhaha yacni cadcad ama gabdhaha midabkooda ifayo light waa wax ifayo ama nuurayo mise dhaldhalaalayo skinned girls yacni gabdhaha midabka yacni maqaarkooda uu ifayo ayay ka helaan bay tiri marka kuwa kaleeto ee maxaa la dhihi jiray madowna waxaa u malayn ilaahay waa u maqan marka gabadha marka sidaa daraadeed waxay leedahay maadaama raggii Soomaaliyeed gabdhaha cadcad un ay ka helaan annaga yacni sidaa daraadeed ayaan ugu qasabtay inaan magaalada galno oon yacni cosmetics iyo waxyaalaha la isku caddeeyo aan soo iibsano isla dhacno ardayaal waxaan filayaa inaad ka hesheen casharkaasi dhammaantiin waxaan idinku codsanayaa inaad channelka subscribe saartaan u share gareysaan saaxiibadiina si ay wax u bartaan oo ay yacni horumar ugu gaaraan dunida aniga macallin Soomaaliyeed baan ahay waxaana ku fikirayaa inaan maalin walbo u faa'iideeyo yacni dhalinyarta walaalahayga ah laga yaabo qaarkood inaysan awood u lahayn ama fursad u helin inay iskuul aadaan balse access gareyn karo ama maxaa la dhihi jiray casharada ka heli karo YouTube-ka maadaama aan jooga maxaa la dhihi jiray duni horumartay we are now in a digital world adduun waxaan joognaa hadda aaladaha isgaarsiinta aad loo isticmaalo marka dhammaantiin waxaan haddana idinkula talinayaa inaad aaladaha isgaarsiinta ama teknolojiyadda hadda socoto inaad ka faa'iidaystaan you have to use it in a positive way qaab wanaagsan waa inaad u isticmaashaan intaasaan idinkula talinayaa insha allah soo dhawaada casharkeenan casharka xigo intaan ka gaarin waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillah I all love you welcome once again